Assalaamu calaykum waraxmatullah. Kulanti wanaagsan daawadayaal. Ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta dunida oo aan ku soo qaadan doono Itoobiya oo ugu baaqday dadka rayidka ah inay ku biiraan ciidanka qaranka. Suudaan oo sheegtay in Al-Bashir ay ku wareejin doonto maxkamadda ICC. Nasrallah oo ka hadlay weeraradii ugu dambeeyay ee isweydaarsadeen Israa'iil. Wafdi qaramada midoobay hogaaminaysa oo bilaabay wadahadalo siyaasadeed ee Liibiya. Qatar oo safiir u magacaabay Sacuudi Carabiya. Zambia oo ka socota doorashada madaxweynenimada iyo tan baarlamaanka. Taliban oo la wareegtay magaalooyin hor leh. Kim Jong Un walaashiisa oo khiyaamayn ku eedeysay madaxda Kuuriyada Koonfureed. 13 Agoosto 2021. Ku soo dhawaada iyadoo ay dhameystiran. Aynu ku bilownay Suudaan. Madaxweynihii hore Suudaan Cumar Xasan Al-Bashir ayaa muddo 10 sano ka badan baadigoobaysay maxkamadda ICC ee fadhigeedu yahay Hague, iyadoo lagu eedeeyay xasuuq, dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha. Suudaan ayaa u dhiibi doonta Cumar Al-Bashir maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada, isaga iyo laba sargaal kale oo loo aaneynayo inay ka dambeeyeen colaadda Darfur. Al-Bashir oo 77 sano jir ah ayaa in ka badan 10 sano waxaa baadigoobaysay maxkamadda ICC. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 300 oo kun oo qof ay ku dhinteen, 2.5 milyan oo kalena ay ku barakaceen colaaddii Darfur oo ka qaraxday gobolka ballaaran ee galbeedka Suudaan sanadkii 2003. Go'aanka golaha wasiirada ee ku wareejinta Al-Bashir maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa yimid xilli uu booqday madaxa dacwad oogaha ICC Karim Khan, laakiin waxay weli u baahan tahay ogolaansho golaha madaxa bannaan ee Suudaan oo ka kooban militariga iyo dad rayid ah. Arbacadii, Khan wuxuu la kulmay hogaamiyaha Suudaan Generaal Abdel Fattah al-Burhani iyo Maxamed Hamdan Daglo oo ah ku-xigeenkiisa. Daglo waxa uu yiri, Suudaan waxa ay diyaar u tahay in iskaashi la samayso ICC. Ra'iisul Wasaare Cabdalla Hamdok oo sidoo kale la kulmay Khan ayaa Arbacadii yiri, go'aanaanta Suudaan ee ah inay raadsato cadaalad ma aha oo kaliya inay u hoggaansanto ballanqaadyadeeda caalamiga, laakiin waxay ka soo baxdaa jawaabta dalabka dadka. Weli ma cadda in Al-Bashir la dhiibi doono si maxkamad loogu saaro Hague ama in lagu sii hayo gudaha dalka Suudaan. Mas'uuliyiinta ku-meelgaarka ah ayaa hore u sheegay inay dhiibi doonaan Al-Bashir, laakiin caqabadda jirta ayaa ah in Suudaan aysan ka mid ahayn heshiiskii Roma ee lagu aasaasay maxkamadda. Balse toddobaadkii hore, golaha wasiirada Suudaan ayaa u codeeyay inay ansixiyaan heshiiskii Roma oo ah tallaabo muhiim ah, kaasoo loo arko inay tahay tallaabo loo qaado in Al-Bashir uu maxkamad wajaho. Bishii December, Washington waxay ka saartay Suudaan dowladaha taageera argagixisada, kadibna sidoo kale waxay ballan qaaday inay tirtirayso deymaha uu Bangiga Adduunka ku leeyahay. Al-Bashir oo muddo 30 sano ah gacan bir ah ku xukumaya Suudaan ka hor intaan xilka laga qaadin, iyada oo ay socdaan mudaharaadyo baaxad leh. Sanadkii 2019 ayaa ku jira xabsi ku yaala waqooyiga Khartoum ee Kober, kaasi oo ammaankiisu aad u sareeyo. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa muddo dheer ku eedeynayay Al-Bashir iyo kaliyaashiisa hore inay adeegsadeen siyaasad ah kufsi, dil, dhac iyo gubid tuulooyin. Aynu aadno Liibiya. Kulan ay Arbacadii qaramada midoobay hogaaminaysay ku qabsoomay fogaan aragga ayaa yimid 6 toddobaad kadib markii uu fashilmay wadahadalo lagu qabtay Switzerland oo u dhaxeeya 75 ka qaybgale oo ka kala socday dhammaan dhinacyada isugu yimid madasha wadatashiga siyaasadda Liibiya. Madasha ayaa mar kale isku dayaysa inay ku heshiiso qaab dhismeedka dastuuriga oo lagu maamulo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha soo socda bisha December. Liibiya waxaa hareeyay musuqmaasuq iyo qalalaase tan iyo markii kacdoonkii ay taageereen NATO ay xukunka ka tuureen oo ayna dileen Muammar al-Qaddafi sanadkii 2011. Sanadihii la soo dhaafay, dalka wuxuu u kala qaybsanaa dowlad ay qaramada midoobay aqoonsan tahay oo ku taalla caasimadda Tripoli iyo maamulo iska soo horjeeda ee fadhigeedu yahay bariga dalka. Maamulada iska soo horjeeda waxay taageero adag ka helayeen kooxaha calooshooda u shaqaystayaasha iyo quwadaha shisheeye.
inkastoo uu Turkigu taageeraya maamulka qaramada midoobay aqoonsan tahay, haddana Khalifa Haftar oo saldhigiisu yahay bariga ayaa garab lixaad leh ka helaya Imaaraadka Carabta, Masar iyo Ruushka. Qaramada midoobay ayaa bishii Diseembar ku qiyaasay 20,000 dagaalyahano shisheeye iyo calooshooda u shaqaystayaal ah inay ku sugan yihiin Liibiya. Abriil 2019, Khalifa Haftar iyo ciidamadiisa ayaa bilaabay weerar ay isku dayayaan inay ku qabsadaan caasimadda. Ololihii Haftar oo socday muddo 14 bilood ah ayaa burburay kadib markii uu Turkigu xoojiyay taageerada militariga ee dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay uu siinayo, isaga oo wata boqolaal ciidan ah iyo kumanaan calooshooda u shaqaystayaal Suuriyaan ah. Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay ayaa la gaaray heshiis xabad joojin ah, taasoo horseeday in heshiiska laga gaaro doorashooyinka Diseembar dhacaya iyo dowlad ku-meel gaar ah oo xilka la wareegaysa bisha Febraayo ee sanadkan. Heshiiskaasi waxaa ku jiray dalab ah in dhammaan dagaalyahanada shisheeye iyo calooshooda u shaqaystayaashaba ay ka baxaan Liibiya muddo ku siman 90 maalmood gudahooda, laakiin weli dalabkaasi ma fulin. Dowladda ku-meel gaarka ah oo uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Cabdulxamiid ayaa doonaysa in dalka ay u diyaariso doorashooyinka soo socda. aynu aadno dhanka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ah ee u qalma inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo ay dagaalo ka socdaan gobollo badan oo ka mid ah waddanka labaad ee ugu dadka badan Afrika. Baaqa Talaadadii ka soo yeeray hogaamiyaha ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobelka ayaa muujinaysa inuu burburay xabad joojintii ay dowladdiisu ku dhawaaqday bishii Juun, iyadoona la arkayay in militariga ka soo ruqaansadeen gobolka Tigreega. Abiy Ahmed ayaa ciidamo u diray gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya bishii Noofembar ee la soo dhaafay si ay meesha ugu saaraan jabhadda Tigreega ee TPLF oo ah xisbi gobolka gacanta ku hayay, kuwaasoo jaangoynayay siyaasadda qaranka ku dhowaad 30 sano. Talaabadan ayaa jawaab u ah weeraradii TPLF ay ku qaaday xeryaha ciidamada federaalka, ayuu yiri Abiy oo ku guuleystay Nobel Peace Prize-ka sanadkii 2019. Inkastoo uu Abiy u ballan qaaday guul degdeg ah, haddana dagaalku wuxuu noqday mid weji gabax ku ah xukuumadda kadib markii ciidamada Tigreegu ay dib ugu qabsadeen bishii Juun magaalo madaxda gobolka Mekelle. Ciidamada Itoobiyaanka Talaadadii dulqaadkii dowladda ayaa u muuqday mid sii dhammaanayo. Kooxda TPLF ayaa marar badan ku celcelisay inay damac ka lahayn qabsashada dhulalka Amxaarada iyo Canfarta, taasi beddelkeedana waxay diiradda saaraysaa fududaynta helitaan gargaar iyo ka hortagidda ciidamada dowladda taageersan. Kooxda Taliban oo la wareegtay gacan ku haynta magaalooyin hor leh ee dalkaasi Afghanistan. Kooxda Taliban ayaa la wareegtay gacan ku haynta magaalo uu awood ku lahaa dagaal ooga caan ah, sida wakaaladda AFP ay ka soo xigatay saraakiisha dowladda. Gudoomiye ku-xigeenka magaalada Sherbegam ee gobolka Jowzjan ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo saraakiishu ay dib ugu gurteen garoonka diyaaradaha oo ku yaala duleedka magaalada dhacda waqooyiga Afghanistan, halkaasi oo ay doonayaan in ay isku difaacaan. Nasiib darro, magaalada si buuxda ayaa gacanta loogu dhigay, ayuu gudoomiye ku-xigeenka gobolka Jowzjan Qadar Maliya u sheegay wakaaladda wararka AFP. Magaaladan ayaa ah halka uu ka soo jeedo hogaamiye kooxeed caan ah oo lagu magacaabo Cabdulrashiid Dostum, oo toddobaadkan uu ku soo laabtay Afghanistan kadib markii uu daweyn caafimaad uu ku soo qaatay waddanka Turkiga. Laakiin waxaa la aaminsan yahay in hadda uu ku sugan yahay magaalada Kabul. Ururka Taliban ayaa dhul ballaaran oo dalkaasi ah la wareegtay tan iyo bishii May oo ay bilowday olole dagaal, kaasoo ku soo aaday xilli ay ciidamada shisheeye bilaabeen in ay si dhammaystiran uga baxaan dalkaasi. Jimcihii ayay magaalada Saranji ee caasimadda gobolka Nimros si dagaal la'aan ah ay gacanta ugu gashay kooxda Taliban. Sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka gobolka, waxa ayna noqotay caasimad goboleedkii ugu horreeyay ee gacanta u gashay Taliban. Dostum ayaa hogaaminayay mid ka mid ah maleeshiyaadkii ugu badnaa ee waqooyiga dalkaasi, isaga oo ahaa shakhsi aad looga baqo dagaalkii uu 1990-kii la galay kooxda Taliban awgii. Waxaana sidoo kale lagu eedeeyaa in maleeshiyaadkiisu ay laayeen kumanaan maxaabiis dagaal ah. Dhanka kale, Taliban ayaa dagaalkeedii u weecisay magaalooyinka kadib markii ay bilihii dhowaa soo qabsatay inta badan baadiyaha.
Kooxdan ayaa qabsatay 5 caasimad goboleed tan iyo Jimcihii, iyada oo waday weeraro culus oo ciidamada dowladdu u taag waayeen. Dagaalkan ayaa sii kordhayay wixii ka dambeeyay bishii May, markii ciidamada ajnabiga ay bilaabeen wejigii ugu dambeeyay ee bixitaankooda oo la filayo in la soo gabagabeeyo bishan. Caasimad goboleedyada kala ah Kunduz, Sir Abul iyo Taloqan oo ku yaala waqooyiga dalkaasi ayaa saacado gudahood waxa ay dhammaantood Axaddii ugu gacan galeen Taliban, sida ay xaqiijiyeen sharci dejiyayaal, ilawareedyo amni iyo dadka deegaanka. Caasimadda Kunduz ayaa ah magaalada ugu muhiimsan gacanta Taliban gashay tan iyo markii ay weerarka bilaabeen bishii May. haddaynu eegno dalka Zambia oo ka socda doorashooyin baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Madaxweyne Edgar Lungu iyo Hakainde Hichilema ayaa markii saddexaad ku tartamaya doorashooyinka dalkaasi. Dadka reer Zambia ayaa u dareeray codaynta doorashooyinka dalka oo dhan. Qiyaastii 7 milyan oo muwaadiniin ah ayaa u diiwaan gashan inay u codayaan madaxweynaha, golaha sharci dejinta ee baarlamaanka iyo wakiilada dowladaha hoose, iyadoona ay codbixintu ku qabsoontay in ka badan 12,000 oo goobood oo ku baahsan waddanka. Musharaxa guuleysta ahi waa inuu helaa in ka badan 50% codadka muwaadiniinta si looga fogaado in mar labaad la qabto doorasho, taasi oo ay falanqeeyayaashu u arkaan inaysan macquul ahayn xilligan. 16 musharax madaxweyne ayaa u tartamaya jagada ugu sareysa Zambia, laakiin musharaxiinta ugu horeeya ee ugu cadcad ayaa ah Edgar Lungu oo ah 64 sano jir iyo nin ay muddo dheer isnacbaayeen ahna ganacsade Hakainde Hichilema oo 59 sano jir ah, kuwaasoo baratamaya markii saddexaad. Hichilema oo markii lixaad tartamaya ayaa taageero isbahaysi u muujiyay 10 xisbi oo dalkaasi ka dhisan. Boqolaal qof ayaa safaf dhaadheer ku jiray ka hor inta aanan qorraxda soo bixin Khamiistii si ay ugu codeeyaan dugsi sare oo ku yaala magaalada Meteusa ee Lukasa. Madaxweyne Lungu ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee ka codeeyay caasimadda Lukasa. Xildhibaanayaasha ayaa sheegaya in musuqmaasuq uu ka dhici karo codaynta. Taageerayaasha xisbiga Lungu ee Patriotic Front (PF) iyo xisbiga Hichilema ee United Party of National Development (UPDN) ayaa dhowr jeer isku dhacay, kana dhashay gacan ka hadal, taasoo keentay in madaxweyne Lungu uu geeyo ciidan. Kormeerayaal maxalli ah iyo kuwo caalami ah ayaa kormeeri doona goobaha codbixinta, kuwaas oo qaarkood markii ugu horeysay adeegsan doona nidaamka aqoonsiga codbixiyaha, iyadoo natiijooyinka rasmiga ah inaan la filayo in la soo saaro maalinta Axadda ah. haddaynu aadno bariga dhexe, Qatar ayaa safiir u magacowday Sacuudi Carabiya. Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa sii xoojinaya xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Sacuudiga, isaga oo dib u soo celinaya safiir kadib muran gobolka ka socday muddo 4 sano ah. Bandar Maxamed Cabdullaahi Atiyah ayaa loo magacaabay safiirka dalka Sacuudi Carabiya. Bandar waxa uu horey u ahaa safiirkii Kuwait. Bishii Juun 2017, Sacuudi Carabiya oo ay wehelinayaan Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa xayiraad dhulka, cirka iyo baddaba ku soo rogay waddanka gaaska hodanka ku ah. 4 dal ee xayiraadda saaray ayaa ku eedeeyay Qatar inay taageerto kooxaha hubeysan iyo inay aad ugu dhowdahay Iiraan. Eedeymahaasi waxaa si kulul u beenisay Qatar. Sacuudi Carabiya iyo Masar ayaa labaduba xiriirkii diblomaasiyadeed la soo sameeyay Qatar, laakiin Imaaraadka Carabta iyo Bahrain weli ma aysan sameyn wax xiriir ah. Dhammaan marka laga reebo Bahrain waxay soo celiyeen xiriirka ganacsiga iyo isu socodka. Intii lagu guda jiray xiisadda gobolka, Qatar waxay diiday 4 dalab oo ay ku jirto xirista shabakadda warbaahinta Al Jazeera iyo sidoo kale inay ka saarto ciidamada Turkiga ee dhulkeeda jooga. Wadamadii go'doomiyay Qatar waxay ku heshiiyeen bishii Janaayo in dib loo soo celiyo xiriirkii kala go'ay. Shir madaxeedkii ka dhacay magaalada lama-degaanka ah ee Al Ula oo uu horboodayay dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman iyo maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo uu waday dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo la isugu soo celinayo darafyadii kala weecday ayaa ka qabsoomay halkaasi. Sacuudi Carabiya ayaa hormuud u ah hagaajinta xiriirka ay la leedahay Qatar yar oo hodanka ah,
taasoo xulufana la ah waddamo ay Maraykanku horboodayo, iyadoona sidoo kale u taagan inay ka faa'iidaysato dhaqaalaha ay haysato iyo soo jiidashada maalgashi ay ku samaynayso waddamada shisheeye. Bishii Janaayo, madaxweynihii Maraykanka ee xilka ka sii degayay Donald Trump ayaa rabitaankiisa ahaa inuu dib u aasaaso garab midaysan oo Carab ah, kuwaas oo ka soo horjeesta Iiraan. Riyaad ayaana ku dhawaaqday inay joojisay qaadacadii ay Qatar ku haysay. Laakiin sargaal sare oo ka tirsan Imaaraadka ayaa sheegay in waqti ay qaadan doonto dib u dhiska kalsoonida, halka Bahrain iyo Dooxa aysan weli yeelan wadahadallo laba geesood ah oo looga gol leeyahay hagaajinta xiriirka. Gabadha Kim Jong-un la dhalatay ayaa madaxda Koonfurta Kuuriya ku eedeysay inay khiyaamayn wadaan. Gabadha saamaynta leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa mas'uuliyiinta Seoul ugu yeertay khaa'imiin sababo la xiriira dhoolatuska militari ee ay sida wadajirka ah u sameynayaan Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanka. Kim Yo Jong ayaa ka digtay in labadan dal ee xulufada ah ay wajihi doonaan halis amni oo weyn oo ka dhalata arrintan, sababtoo ah ayay tiri Pyongyang waxay sare u qaadi doontaa awoodaheeda difaac. Hadalladii ugu dambeeyay ee Kim Yo Jong ayaa imaanaya xilli ay isu soo dhawaansho lama filaan ah ka jirto jasiiradda Kuuriya, taasi oo ka dhalatay warqado dhowr ah oo ay isdhaafsadeen walaalkeed iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. Labada dhinac ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay in ay soo celiyeen isgaarsiintii labada dal oo muddo ka badan sanad go'nayd, ayaga oo ku dhawaaqay in labada hogaamiye ay isku raaceen in ay ka shaqaynayaan horumarinta xiriirka. Hase yeeshee, Kim Yo Jong oo la taliye muhiima u ah walaalkeed ayaa ku cambaareeyay Koonfurta qabashada dhoolatus militari oo halis ah oo ay kala qaybgalayaan Maraykanka. Waxay sheegtay in ay aad uga xun tahay dhaqanka khiyaamada ah. Nasrallah oo ka hadlay weeraradii ay isweydaarsadeen Israa'iil. Xisbullah ayaa gantaalo ku tuurtay dhanka ciidamada Israa'iil, taasoo dhalisay in Israa'iil ay iyadana Koonfurta Lubnaan duqayso. Taasina oo dhalisay in Israa'iil iyadana weerarto Koonfurta Lubnaan. Labada dhinac ayaa gantaaladooda la beegsaday dhulal bannaan, taasi oo muujinaysa inaysan doonayn. Khudbad uu jeediyey hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah oo lagu maamuusayay dhammaadkii dagaalkii 2006 ay la galeen Israa'iil ayaa waxa uu ku sheegay in ay duqeymaha Israa'iil yihiin halis cusub oo aan la arkin 15 sano ay tagay. Wuxuu sheegay in kooxda ay doonaysay inay muujiso in duqeyn kasta oo Israa'iil fuliso looga jawaabo habka ugu habboon. Waxaan shalay dooranay dhul bannaan oo aagga beeraha Sheba si aan fariin ugu dirno iyo inaan tallaabo qaadno, balse marka dambe waxaan qaadi karnaa tallaabo ka sii daran, ayuu yiri Nasrallah. Gantaalada ay isweydaarsadeen labada dhinac ayaa bilowday Arbacadii kadib markii gantaalo laga soo tuuray Lubnaan ay ku dhaceen Israa'iil. Xiisadda gobolka ayaa kacsaneyd wixii ka dambeeyay weerar lagu qaaday markab ay maamusho shirkad Israa'iili ah oo marayay meel u dhow xeebaha Cumaan, kaasi oo lagu eedeeyay Iiraan. Iiraanna waa ay beenisay ku lug lahaanshiyaha weerarka markabkaasi. Ay Barcelona shaacisay in ugu dambeyn Messi uu macsalaameeyay kooxda Barca, ayna ugu mahadcelinayaan wax kasta oo naadiga uu soo qabtay maadaama uu kula soo guuleystay koobab badan oo muhiim ah. Messi ayaa kooxda u saftay 787 kulan, wuxuuna u dhaliyay 672 gool, halka uu caawiyay 305 gool. Wuxuuna kooxda la qaaday 35 koob oo heerar kala duwan ah. Lionel Messi oo heshiiskiisu dhacay bishii Juun ee aynu ka soo gudubnay ayaa madaxda Barcelona waxay isku dayeen inay heshiis cusub ka saxiixdaan, balse dhaqaale yari kooxdaasi haysataa ayaa keentay in ay iska fasaxaan maadaama aysan awoodin dhaqaale ay ku cishtaan xiddigoodii hore. Geesta kale, kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay xiddigeeda cusub ee Lionel Messi oo ku lubisan dharka kooxda. Kooxda reer Faransa ayaa shaacisay in heshiis 2 sannadood ah ay la saxiixatay Lionel Messi, isagoona maray tijaabo caafimaad ka hor inta aan loo gudbin hoteelka uu degayo, halkaasi oo ay ku sugnaayeen taageerayaal fara badan oo markii dambe ka salaamay daaqadda sare. Lionel Messi waxa uu kooxdiisa cusub u xiran doonaa nambarka 30
oo ah midkii uu ku bilowday waayihiisa ciyaaraha ee Barcelona. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, kana mid noqo asxaabteena. Mahadsanidin.